الواح بي يلد عند وركي مالها يقولوا دفتين وحاسكو دينا البابك إنا حرنا البابك ما واحد بدن كره دجالنا قبل إذا فرت البابك كقد عكجوي إن dagaalkii rafashadii ka bacda aniga markii dambe kab shaytir isku kabaha oo seefta lagu ciyaaro way ugu soo tooreen madax halkaan iga dhufteen aan laftayga waa wareer markaas waa jug baa iga gaartay aad madaxa cunug iga diliyeen ayadana booliiskaas kale u yeeray cunug yar ay wax iga sameeyeen iyo had deertaan oo markii ugu dambeysay guriga noo soo galeen inkastoo markii hore guriga noogu imaadeen laakiin hadda markii ugu dambeysay guriga noogu soo galaan marka ay noo soo galayaan waxay leeyihiin ma noolaanaysaan waa idin dileynaa ma wadanka ma joogi kartaan kuma noolaan kartaan dad yahow madmadoow dharka xun qabo saaman caaya marka ayada arrin ficilkaana sameynayaan hadda jaraaidadan odaygi wuxuu bilaabay inuu caayo neegar yaab lidriid soon oo calaamada oo rasistaha naasiga inuu sii tuso oo waxay isla markii booliiska oo ka hor la sii wacay baa noo yimid annagii buu noo farbaxsanaa uu nacaynaa booliiska hortiisu nagu caynaa riix xun cunsurnimo nagu dhahay booliisku uu taagnaa uu maqlay markiisaan ugu sameynayaan markaas bay dhacday xukunka 45 biri ah waa 2017 intii ka dambeysay marka wali dhibaatada way socotay bilmatalan gaarigayga ani dhalinyaro ciyaal baan haystaa oo dumara laba gaari bay laba kala wadataa anigana gaari baa gooniyaan lahaa gaariyaasha markasta especially kayga bay aad u yaqaaneen markasta taayirka markaan bil jooga ama labadii biloodba mar midaaliga geliyaa taayirka booliiska waa u tagaa waa tusaa sawirkii aan booliiskaas la yeelay waxba kuma hayno qof cad ay dhahaan qofkaas wax sameeyay ma jiro waxay dhahaan baar inaad saas ku dhacday warqadan buuxi hadalkan iyo dhacdada markii laga hadlo violence ama dhibaato oo gacan ka hadal oo dhaawac adii qoyska idin geystay oo ma jira aad soo bandhigteen oo booliiska u bandhignay markaas ayada ah oo booliisku jooga la xukumaan ku sheegaayo iyo mar kale oo cunug iga diliyeen ayadana booliiskaas kale u yeeray cunug yar ay wax iga sameeyeen iyo had deertaan oo markii ugu dambeysay guriga noo soo galeen inkastoo markii hore guriga noogu imaadeen laakiin hadda markii ugu dambeysay guriga noogu soo galaan marka ay noo soo galayaan waxay leeyihiin ma noolaanaysaan waa idin dileynaa ma wadanka ma joogi kartaan kuma noolaan kartaan dad yahow madmadoow dharka xun qabo saaman caaya marka ayada arrin ficilkaana sameynayaan hadda jaraaidadan Norway qoraalada ugu badnaa toddobaadkan idinka la idinka hadlaa adigii qoyskaaga album ma soo guurteen imisa qofka ka soo guurtay ma wada timaadeen mise wili baana wada imaan labada gabdhood oo mid 18 jir ah 19 noqonaysa mid 22 jir ah waxay ku haysteen meesha shaqo samar shaqada xilligan xagaaga shaqooyinka ee dhalinyaradu helaan marka hadda ima soo raacin laakiin 2 August bay soo dhameynayaan labaduba imaanayaan halkan ninkan isaga nafkiisu waraysi sida la idin kaga qaaday jaraa'idku ku qornaa iyo reerkiisa waa loo tagay waa la weydiiyay wuxuu yiri anagu daris waan nahay nacayb cunsurnimana ma jirto laakiin waa heshiin weyno wax darisnimo naga dhaxayso qoys ahaan u heshiin weyno laakiin wax la sheegay waa been taas iyadana waragta arintaas been buu ka sheegay oo daris horta iskuma dhawin oo guriga ani gurigiisa ma arkin meel uu degan yahay wali ma arkin inaan kor la dhaho halkaas u degan yahay ma ahan laakiin wali gurigiisa baan arag markii qofku dib ku dhaco Faadimo masiibo markay dhacdo qofku dib ku dhaco cunsuriyadu ay ka mid tahay dadka waxa caawiya oo wax tara ehel iyo ummad Soomaaliyeed iyo ummad Norwegian dadka wax garadka cunsurnimada diidan dadkaaga Soomaaliyeed oo magaalada degan oo ehel iyo qaraabo ku ah Soomaali ku ah adii qoyskaaga wax istoota ma ka heshay marka horta wadankan la jooga ama wadan aan wadankaaga aad joogtid waxa ehelka waxa isku ah waa dadka markaas isku diirka ama isku jinsiga ah waa ehel isku ah meeshaan hooyo nooma joogto aabba nooma jooga adeer nooma jooga ilmahayga ayeeye ma haysan awoow ma haysan adeer ma haysan waxa uu ahaa waxa soo dhan dadkii aan la noolaabay ahaayeen ama meesha aan la deganaa haday yihiin Soomaali haday yihiin dadka kale oo cadaanka wadanka degan aniga markii dhibaatada nagu dhacday alxamdulillah laakiin markii dhibaatada nagu dhacday dadka Soomaalida ah wax caawinaada xitaa xiriir badan Soomaalida cudurka qandho waxay qabaan cabsi inay ka cabsadaan booliiska iyo baan haday maqlaan inaysan xaqooda xitaa raadsan karin marka saadarteed dadkii Soomaalida ah dib inoo wada durkeen oo waxay u dareemeen sheekadan inay ama dib kala kulmayaan ama wax ka arkid doonaan laakiin dadkii cadaanka wadanka joogay waxayna tuseen garab istaag
aad bay noo caawiyeen aad bay noo garab istaageen wax kale iska daa cuntadeeda iyadoo xiran bay subaxii albaabka quraacdeeda albaabka iyadoo taalaan soo tooseen cadaanka noo sameeyay meeshii Soomaalida aan la degan noo sameyn lahayd cadaanka noo sameeyay marka qof xun haduu jiro qof fiican waa jira maya boqolkiiba 90 waxaan dhigi karaa dadka Norwejiga dad fiican waa hadda soo guurteen Oslo soo degteen soo dhawaada mar kale waa mahadsantahay maxaa ka filaysan halkan waa caasimadii Soomaali badan baa degan ma la kala maarmo cabsidii xaggeeda ku haysay gurigan weyn oo degan tahay meesha degan tahay jirooy badan baa degan xalay isay u saxatay والله ولي هدان سيده saxda sheego wali waxa igu jira wixii aan soo maray iyo ninka waxaan ku seexday kaniin xalay aaw wali waxa waay systemkayga ma degana staabil ilmihi wali naxdin iyo shock baa ku wada jira laakiin markaan u soo dego meeshaan aan soo degay aan arinteeda soo galo ani hata wali qofna kama baran halkan oo dad hadda wali kama aqaano marka laga reebo dad aan awal aqaanay oo meera iga durugsan degan wali xaafadan cid kama aqaano laakiin waxaan rajaynayaa inay markastaba sidii aan awal ahaa aan kasoo beedar ahaan doono nolosheena ay soo bedeli doonto Oslo soo degtay dad badan oo degan oo Soomaaliya aqoonyahan dhalinyaro gabdho wiilal jaamacada kuwa dhigta awoodeena marka la sheego inkastoo aysan badnayn Oslo deganahay oo meesha degantiin markii loo fiiriyo inta awood waa leenahay inkastoo midnimo sax jirin runtan ku sheego oo Soomaalidii booskii laga rabay aysan joogin haddana dhibkeedin gaaray waa laga dhaqnaday oo in badan waa laga hadlaa oo social media looga hadlaa telefishinada loo meel kasta waa ku jirta dadkaas hadaa la hadasho aan jaanisku siiyo waxa ka codsan lahayd ma jiraan والله sabab waxa ugu weyn horta aan ka codsan lahaa Soomaali horta in ayada mid noqoto oo isu arkaan inay yihiin targetkan anaga hadda waxaan ugu dhacay qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo midow inuu ku dhici lahaa sababtoo aan wax dambiyo aan galay ma jirto aan ahayn ina kalarkan leeyahay ama ina maradan xiranahay taasna anigu ma dooran inaan kalarkan leeyahay alxamdulillah inaan islaan ahayd ilaahay baa ii dooray laakiin kalarka ani ma faalgeysan inaan saan u ekaado ama kalarkan yeesho arintan ani kaliya ma qosayso qof kasta oo wax qosaysa anigoo kala ah oo Soomaali ah ama Islaam ah bay qosaysa sababtoo wax dadka lagu taariikh gareynay waa xijaabka iyo waxa waaye kalarka labadaas baa ugu muhiimsan qof kasta intaas haystana waa ila qaba dhibaatadan marka waxa fiican inaan midoono gacmaha isqabsano aan u istaagno si aan isku difaacno oo qofkeena dib soo gaartana u garab istaagno annagana aan is noqono dad isku xiran oo wax noqon kara saasan Soomaalida horta kula talin lahaa markaan fiiri meel walba kuwana aniga magaalada deganaa oo dad ku yareen baa saa u kala daadsanay hadda dad Soomaali nin Soomaaliyan wacay maalintii waxa noo imaanayay joornaalo badan joornaalka Afton Boston kuwa Oslo ka imaanay in arkooga iyo daag balaatoon hal badan anagana nervous baa noqonay arinta culeys badan bay nagu noqotay waxay nagu noqon xagga meediyaha balaaya la qoraaya wixii baa akhrinaysa ma naseexan jirin anaga dhan waxaan noqonay culeys badan baan soo wariyay soo aaday nin baan wacay dirisna waxaan arniyo kala joornaalada waxaan imaanayay waxaan noo istootisa naabu ahaan noo istootay kaliya inaan naabu tahay oo dadka naabu hoodanahay lacala noo istootay ma qof adaga ta arinta aad ku filan tahay si daabu lahaan igu dhufteen waxaan isku daynaa albaabkii inaan xirano albaabkii wax badan ku dagaalnay gabadheeda farta albaabka kaga dhaco ka gooyay dagaalkii rafashadii ka bacda aniga markii dambe kab shaytir isku kabaha oo seefta lagu ciyaaro way igu soo tuureen madax halkaan iga dhufteen aan laftayga waa wareer markaas waa jug baa iga gaartay aad madaxa aakhirkii waxaan ku guuleysanay inaan albaabka xirano oo aan albaabkii markii dambe anaga aan xirano waa dhacdadii ugu dambeysay oo dhacday isniinta hadda la soo dhaafay laakiin dhibaatadeen wax badan ay soo socotay wax badan bay ama nacaayeen ama midab una tuseen kala sooc cunsurnimo badan noo muujiyeen arintaas iskuulada ogaa gaarsiiyay kamuunka kuwa meesha xukumaan gaarsiiyay booliiska ayagu daily maalin walba ogaayeen markasta wax dhacaan booliiska la socodsiinayay dadka badan oo waxa ogaa aan ku dhex jira socialka aan la ahay baa wada ogaa adigu arintaas wax badan ay soo socotay aakhirkii hadda saana dhacday markii dacada waxaan go'aansan inaan meeshan ka guuro saasaan uga soo guuray magaalada Elverum oo ahayd gurigeygii labaad oo inta ku soo deganaa oo 26 sano deganaa ilmahayga inta badan ku dhalay gabadhan ku dhalay baa ku dhashay marka ay noo soo galayaan waxay leeyihiin ma noolaanaysaan waa idin dileynaa wadanka ma joogi kartaan kuma noolaan kartaan dad yahow madmadoow dharka xun qabo saaman caaya marka ayadaas hadda koor waxa dhacday maalmaha kamid ah inay
nasoo weerareen ciyaalku markasta caadi inay nacaayaan dhibaateeyaan bay ahaan jirtay wiil yar oo dhalay bay maalintaas dhibaato iga geysteen ciyaalkaas marka wax reerkaas waxaan isku dayay inaan gurigooda iyo meesha degan helo si aan ilmahooda dhibka ay nagu hayaan ugu sheego waalidka ilmahaas dhalay ciddi waa weynay bahalkooda maalintii dambe waxaa dhacday inay cunugayga iga dileen waxaan ka soo qabtay inaan soo qabtaan damcay baaskiilan ka soo qaatay baaskiilkii gudahan soo geliyay anoo raba inaan helo waalidkii ilmahan dhalay ay yimaadaan dhahan maxaa ilmahayga baaskiilka uga qaadatay ama ila hadlaan baaskiilkii markaan qaaday waxaa noo yimid baaskiilkii meel baan ku xiray waxaa yimid odaygii habartii intaas ciyaal oo la socda iyagoo tiradii ka batay aniga dad normal umaleynaa ilmahay gudahan galay anaa soo baxay waxaan tusay inaan si fiican ula hadlo anoo qoslaayo faraxsan aan waalidka si fiican wax u fahansiiyo la hadlo markaan soo baxayba oo aan salaanta simiyay odaygii wuxuu bilaabay inuu caayo neegar yaab lidriid soon calaamada oo rasistaha naasiga inuu siiyo qoyskan cadaanka ee sababay in qoyskan Soomaaliyeed ay ka soo guuraan magaalo ay deganaayeen 26 sano ayaa la sheegay in dacwad haatan ay ku socoto booliiskuna ay wadaan baaritaan waxa kale oo la sheegay in dacdadan oo soo socotay muddo 3 sano hore loogu xukumay ninkan dib u geystay qoyskan Soomaaliyeed muddo 45 maalmood ah حسن سعيد راستا رادية TV قرنك الصوماليات أوسلو نورو